door wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka doornimo qodobada maanta ugu waaweyn waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka oo maanta dhageysatay dacwadda kursiga hoob 86 uu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. guddiga doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta bilaabaya diiwaangelinta iyo shahaadeysiinta musharaxiinta u tartamaya xilka guddoonka labada gole. Sheekh Aadan Madoobe oo ka mid ahaa musharaxiinta gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo shaaciyay inuu iska casilay xilka gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Himilo Qaran. madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeedna waxay ku soo wajahayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. inteeda kalena akhbaraadkan idinkaga soo tabin doonana waxa ugu waaweyn. madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi oo digniin u diray Israa'iil. mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duurnimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha afraad ee Abriil sanadku waa 2022 cabdinaasir deefu ayaa soo saaray isla cabdinaasir iyo aniga cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin warameena axmed jaaja ayaa isku kaahin xiraya imikana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan. aynu ku bilownay saaxiibayaal maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta dhageystay dacwadda kursiga hoob 86 oo ku soo baxay taliyii hore ee hadda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka Soomaaliya Niisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haatanna ah la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa bilowday dhageysiga dacwadda uu Fahad Yaasiin ka gudbiyay guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID kadib markii ay waxkama jiraan ay ku sheegeen natiijada kursigaas xildhibaannimo oo hore ugu guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dooda maxkamadda oo markaa maanta afartii galabnimo ama xilli hore ee saaka bilaabata ayaa xafiiska qariiqan guud difaacaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay ku doodayeen in maxkamaddu aanay xaq u lahayn qaadista dacwaddan maadaama heshiiskii 12 September ay ku cadeed magacyada ama habraacyada lagu maamulayo doorashada laguna xalinayo haddii muran ay markaa ka yimaadaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya. dhinaca kale qareenka u doodaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dhankiisa ku adkeysanayay in dooda xafiiska qareenka guud ee sharciyad ay dacwadda ay ku hortaagto aanan lahayn saa daraadeedna ay maxkamaddu hore u wado qaadista kiiskan. inkastoo dhageysiga dhinacyadu mid aad u sareysa islamarkaana dheereed doodaha ay iswadaarsanayeen haddana waxaa muuqatay in qareenka u doodaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo maxkamaddu ku soo bandhigay caddeemo muujinaya in waxa sharciyada aysan u haysan guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID inay kursigaas ay hortaagaan sidoo hadaladiisa ay ka muuqatay. dhinacyada kale ayaa dhankooda ku doodayay in guddiga uu xaq u leeyahay. markii dooda ay soo idlaatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa ku dhawaaqay in dacwadda ama markaa dhageysiga maxkamadda dhinacyadu ay xiran tahay islamarkaana go-aan qaraar laga soo saari doono sidoo hadal ku dhigay Baashi Yuusuf Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. dhanka kalena ee guddiga doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhow bilaabaya diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta murashaxiinta u tartamaysa xilka guddoonka labada gole. Cali Aadan Axmed ayaa faahfaahinaya warkan. waxaa la filayaa in maanta si toos ah loo bilaabo diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ee doonaya inay u tartamaan guddoonka sare ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. maanta oo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay 19 bisha afraad ee Abriil ayaa lagu wadaa in xubnaha daneynaya guddoonka iyo labada ku-xigeen ay isdiiwaangeliyaan maadaama jadwalka shalay ee soo saareen guddiga qabanqaabada doorashada labada gole ay sheegeen 19 bisha oo maanta ay markaasi bilaabanayso diiwaangelintu. sidoo kale aqalka sare ayaa si toos ah u bilaabmaya diiwaangelinta musharaxiinta doonaya inay markaasi isu soo taagaan qabashada xilka gudoomiyaha aqalka sare. qoraal ka soo baxay xalay aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ayaa lagu sheegay in maanta ay bilaabanayso diiwaangelinta ayna furan tahay ciddii dooneynaysa inay markaasi u tartanto inay soo diiwaangeliso 19 Abriil 2022 guddiga doorashada guddoonka golaha ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya waxa uu bilaabayaa diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka guddoonka aqalka sare ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay oo markaasi aqalka sare. Mas'uud Cali Aadan dhinaca kan saaxiibayaal haddii aanu ku sii socono arrimaha ku saabsan waxaa maanta shahaadada markaas xildhibaannimo markaa ama shahaadada
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee qaatay sheekh aadan madoobe oo kamid ah musharaxiinta gudoomiyaha aqal oo ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya. dhinaca kale wuxuu shaaciyay inuu iska casilay xilka gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga himilo qaran oo halkaas hayay. sheekh aadan madoobe oo shir jaraa'id qabtay ayaa arrintaas faahfaahiyay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. marka koowaad mahad kulligeeda alle subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay oo noo suurtageliyey maanta inaan doorasho qabsoono aan maaragtay xeer aan rajo naga galo inaan tartamno alle subxaanahu wa tacaala noo sahlay baan ugu mahad celinayaa. waxaan kalean u mahad celinayaa qof kasto gacan ka geystay qabsoomida doorashadan dadaal ku bixiyay baan u mahad celinayaa. intaas kadib shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan caddeeyo oo aan u caddeeyo ummadda Soomaaliyeed siduu qabo qodobka dastuurka qaranka ee ku meel gaarka ah qodobkiisa 65aad farqadiisa 3aad oo nafarayso qof kasto u tartamayo gudoonka golaha shacbiga mas'uud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed inuu iska casilo xil kasto uu u hayay xisbi siyaasadeed. sidaa daraadeed waxaan u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan iska casilay xilkii aan ka hayay xisbiga himilo qaran, taas oo aan fulinayo u hogaansamayo siduu nafarayo dastuurkeeni. isla markaasna hadduu ilaahay igu makaniyo igu guuleeyo aan noqon doono oday Soomaaliyeed oo u saman dhammaan garabada siyaasadeed ee Soomaaliya, cadaalad iyo sanaan aan ku maamuli doono siyaasad xisbi u gaar aan meesha la tagi doonin. intaasaan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed u cadeeyo. aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa safar shaqo kusoo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. garoonka diyaaradaha aadan cadday magaalada Muqdisho wafdiga madaxweynaha waxaa kusoo dhaweeyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiiro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada caasimadda ee dalka. dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dhankiisa saacadaha soo socda la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho ee Soomaaliya si uu halkan ugu bilaabo oliyeysa doorashada musharaxnimada xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka ugu sareeya dalka, isagoo inta badan maamulkiisa xildhibaanada kasoo baxayn yihiin kuwaasi markaa ka amar qaata islamarkaana soo saarta uuna rajeynayo in codad uu ka helo. wararka Soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa cambaareeyay in caadi laga dhigo xiriirka dalalka Carabta iyo Israa'iil, wuxuuna Israa'iil ugu digay arrintaas. Ra'iisi ayaa xiriirka Carabta iyo Israa'iil uu kusoo hadal qaaday xilli uu ka hadlayay dowlatus military oo lagu qabtay caasimadda Teheraan oo lagu xuseeyay maalinta ciidamada dalkaas. isagoo Israa'iil digniin u jeedinaya ayaa wuxuu yiri haddii Israa'iil ay doonayso inay caadi ka dhigto xiriirka dalalka qaar, markaas way ogtahay in ficladeeda ugu jar aysan annaga naga qarsoonin. haddii ay qalad sameeyaan waxaa si toos ah u weerari doonaa maamulka Yuhuudda. quwadda ciidamadeedana uma ogolaanayso inay nabad ku joogaan, ayuu yiri madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Ra'iisi oo markaa digniin u dirayay dalka Israa'iil. guddaan warkii duur ah doornimada waa inageynta.